xaflad si qurux badan leh loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Xafladan ayaa lagu caleema saarayay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka Koonfur Galbeed ee dalka Koonfur Afrika ku matalo. Jaaliyadda KGS ayaa halkaasi ku caleema saartay Cabdicasiis Cabdi Ibraahim Shirfow, gudoomiyaha KGS ee dalka Koonfur Afrika, halka gudoomiye ku-xigeenkiisana loo caleema saaray Cusmaan Aadan Baraka oo loo yaqaan Leeb. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad, aqoon-yahano, siyaasiyiin, culumaadiin, dhalinyaro, ganacsato. Qaar ka mid ah oo maadaasha ka hadlayna hadaladoodii waxaa ka mid ah sida tan. bismillaah horta ma inta ku salaamay madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen may kale salaamay walaalkay gudoomiye Cabdicasiis Cabdi Ibraahim Shirfow may kale salaamay gudoomiye ku-xigeenka saaxiibkay Meyle Rays Cusmaan Aadan Baraka Masaliib salaam ku baxda horta may oo keedanka faraxsanaa antii Meyle Rays ana qayb kunagada caleema saar gudoomiye magaaladu may deganaada jiray oo qofba roogna oo hor roogona macnaha tira ilaa 10 qofood waljaalid reewn sheegada rooga may ku xasuustay walaalkay Meyle Rays Maxamed Naasir iyo may ku xasuustay Cabdicasiis hataa ma hada jiray dadka gidaalku kooy horta intii أنت المهندسين Cabdicasiis waa lansiqaase saaxiiban anu anin farxada inaad inta ku qeyb gal meel oo meel raay ala masaajidka Cabdicasiis wali ka ogaan wax tar leh wax qabad leh oo dulqaad leh oo umtinis sheelo korantiis ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wali ku rajeeyana intiis xilka la qaad Cabdicasiis adin walkii ku baahnaa maadaama qowteen magaaladii gobolkii wadanka lagu maamulay adalood waliba walbadan yalkii ku baahan intaada wal ku bedel astawayba ka salaamay maqaamka usleeya waa ka salaamay intaas ku bacda xafladda sidii la sheegay xaflad caleema saaraya waa hayti la ka caleema saaray gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenjay gobolkan Gauteng jaaliyadda hadii ana digli miraflaana arra iyo nayti hoona Koonfur Galbeed shal wiinyin meelan wayba ka qorana Koonfur Galbeed Soomaaliya si uu ognaa Soomaali wiin yadagan malka magaca qora Koonfur Galbeed digli mirafla xaqiiqada sida Koonfur Galbeed Soomaaliya qowmiyad kasta oo Soomaaliya ka abtirsadaas iyo wadagan marka hadii la magaca Koonfur Galbeed Soomaaliya wayba kalanaha gudoomiye ku-xigeenka shaqo weyn iyo maaragna kulay madaga saarateen wayba Ilaahay siin weydiyaane in culayskaas siin gaadeen siin fududaaye hadii una waxa qiimo noo caawa inaan ka soo qayb galo xafladan aad ku weyn ina soo doorateen rag idin qalma oo idin hogaami kara mudada u doorateen idinku caleema idinku caana ku shubay annaguna marqaati aan ka nahay wiil oo dhalinyarada ah oo asxaabteena la caleema saarayo gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed South Africa Cabdicasiis Shirfow iyo ku-xigeenkiisa saaxiibkay Cusmaan Leeb waxaan leeyahay caaw waxay u baahan yihiin kali ah in la shaqeeyo garabkooda la taagnaado laba qof kaligood waxay qaban karaan mara Soomaalidu waxay dhadaafar kaligeed fool ma dhaqdo sidoo kale gudoomiyaha la doortay ayaa maadaasha ka hadlay iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa ka hadalaw magaagay Cabdicasiis Cabdi Ibraahim Shirfow iyo gudoomiyaha jaaliyadda reer Koonfur Galbeed South Africa ma eed aan mahadsan dhalinyarada sida security oo ku isku xilqaameen in security safaylan wadaan mayba inta ku mahad eliyay meediyaha sida Shabeelle TV dadka oo dhan isla dhaladeen walaalo
siyaasadda magil dhahgaloona lan walba wala deere lankii wal deere iyo lankii guulaysid iyo lankii lagu guulaysid dad is dhaladayna walaagaas doona xalli doon insha Allah oo nigu gooy magaalada Cape Town iyo dhammaan jaalido kale North West ku gooyeen salaamantiina wal magaashi ima sabjeek salaameen bacda salaam hadalka mabadiyo ka gadoomiye ku xigeen ahaan may ku hadal faday saddex qodobood qodobka koowaad ma tuwa midnimo insha Allah maamulka hadda inta la ka dhisi oo aan gadoomiye ku xigeenka ahaa may ballan qaadanee waana sameeyay doonay inuu midnimada digil mirifla ama midnimada jaaliyada koonfur galbeed oo ku shaqeyna meeloobi iyo ruban dalka koonfur Afrika ugu dambeynna gudoomiyaha guud ee jaaliyada dalka koonfur Afrika mudane Maxamed Cumar Warsame Talyaani ayaa ugu dambeyntii madasha ka hadlay miidiyaha raadiyoga iyo idaacadda Shabeelle oo mar walba garab taagan jaaliyada Soomaaliya dalka koonfur Afrika ognahay raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle hal doorka iyo doorka ay ku lahaayeen tabinta iyo hor u socodka geedi socodka nabadda Soomaaliya oo nacaaw nagala jooga saaxiibkeen Cabdirashiid Crash tanaasulka iyo horumarka ay sameeyeen gobolkan waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto hambalyana u diro ayagoo gudoomiyahoodii guud iyo koodii odayaasha dhaqanka iyo kii dhalinyaradaba caawa ay goobta yimaadeen saaxiibkay Maxamed Sheekh Isaaq Maday oo aan ognahay inuu caawa odayaashii guurtida reer Istanbul matalayo caawana saaxada lagu arkay marka la ku soo dhawo waa nagu cusub tahay Maday mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawo gobolka iyo guud ahaan jaaliyada inta kadib hadal badan caawa iyo ma furna waxay tahay inaan marqaati iyo maraka noqono walaalaha ay u doorteen reer koonfur galbeed inay hogaamiyaan jaaliyada waxaan marqaati ka ahay kuna danaya marqaatina ooga ahay in gudoomiyaha dhaqanka ay soo doorteen ee koonfur galbeed si wada ogalna ku yimid inta aan ogahay odayaashan igu wargeliyeen oo ugu horeeyo Malaaq Cabdicasiis Jeedow in gudoomiyaha jaaliyada koonfur galbeed ee gobolkan uu yahay Cabdicasiis Cabdi Ibraahim Shirfow gudoomiye ku-xigeenkiisana uu yahay gudoomiyihii dhalinyarada ee reer koonfur galbeed haddana ah gudoomiye ku-xigeenka koonfur galbeed aadan Cusmaan Aadan Barako waxa idin leeyahay xilka Ilaahay ay idin fududeeyo Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada madaxda labaad ee dalka koonfur Afrika magaalada Johannesburg